بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا قلي وائد السلام ميل البؤد جوجتان كسور دوادا جانالكا كارين iyo qurxin kani qurxin maanta waxay idin la wadaagaysaa insha Allah rootigaas oo maasha Allah cashada aad iyo aad ugu wanaagsan waxa kale inta idin la wadaagaya insha Allah sida ugu fudud oo rootiga kuugu hagaagi karo hadii rootiga ka adkaan jire ama dib aad ku qaban jirtay sida ugu fudud oo ku qasan karto iyo wixii aad ku darsan karto biidnillaahi alkariim dhammaan waxaan soo dhaweynaa insha Allah inta ku cusub channelkayga oo cusub oo ugu soo biirtay iyo inta hore ila joogi jirtay dhamaantii waa mahadsantihiin kun iyo kow jeer insha Allah hadii aad ka hesho videoga تمس أب إن شاء الله أو لايك تصار وسي شير قراء أصحاب تادا وحي طلع اتصال أهنا كومنتيغا وحي دي رجلنا وحقينا وان إذن كما هدعلنا كومنتيغا قل روح ذا بدن إيسو قرطان بإذن الله الكريم هادنا وحن قد قلنا سيني أو سمي سنة روتيغا halkan waxa iyaala waa 1 kiilo bur ah hal macalgo liibita ah hal macalgo sokora in yar oo cusbo ah laba qaado saliid ah hal xabo bardho aan biyo ku soo kariye laba xabo ukun ah iyo laba koob oo biyo ukunta mooda isticmaali doono dib ayaa ka arki doontaan marka baaquligii aan rooti ku qasan lahaa ayaan waxaan ku shubay in yar oo bur ah qiyaastii laba macalgo saddex macalgo burka marka aan ku shubay hal koob oo biyo ah labadii koob biyo ah hayste kamid ah ayaan ku shubay kadib waxaan ku shubayaa in yar oo cusbo ah liibita iyo sokor oo hal macalga cusbo oo in yar ah intaas markii aan isku daro marka waan isku qasayaa falwiska ayaan ku qasayaa waan isdhexgelinayaa markii aan isdhexgeliyo kadibna waan dhigayaa insha Allah ilaa 5 daqiiqo 3 daqiiqo waxa rabaa inuu iisoo fuuro biidnillaahi alkariim marka hadda waa kana wuxuu bilaabay inuu soo fuuro insha Allah marka wax yar ayaan waxaan rabaa inaan sii hagaajisto oo sii jajabsado baradhadii hadda halkan ii tiilay baradhadaas awal hore aan biyo ku soo kariyay biyo ayaan ku soo kariyay baradhada markii aan biyo ku soo kariyay waan soo jarjaray markii aan soo jarjarayna kadibna waan burburinayaa waan jijibinayaa markii aan jijibiyo oo aan ka dhigo sida bur oo kale budo ah oo sidaas hadda u jeedin aan u jijibiyo ayaan waxaan rabaa insha Allah inaan ku daro rootiga waa maasha Allah aad iyo aad ay baradhada markii aad ku daristid rootiga ee kuugu jilcinaysa qurux ee kaaga dhigaysa ilmaha maasha Allah borotiin way ka sii helayaan baradhada maasha Allah aad iyo aad ay kuugu jilcinaysa ayadana waa burkii oo kaleento marka baradhadii aan soo jijibiyay oo cajiinka in yar oo ii soo qamiiray ilaa 5 daqiiqo ayaan baradhadii ayaan waxaan ku daray cajiinka qaybta qamiirka aan soo qamiirsaday kadib waxaan ku darsanayaa laba macalgo oo saliid ah iyo koobkii biyaha ay dhinaa oo laba koob waa qiyaasna isticmaala labada koobna waa isku size waaye laba xabo ukun ayaa halkan ku haystaa hal xabo ukun ayaan ka bixinayaa halkaas xabo ukun waxa rabaa kor inaan ka marsado labadii xabo ukunta ahayd hal ayaan ka reebtay muxuu ahayn dad qaybteeda cadeed iyo qaybta jaalaheed hal kamid ah waa adi hal iyo half ukun ah ayaan ku daray kadib markii aan ku daro waan isku qasay markaan isku qas kadib waxaan bilaabayaa burkii inaan in yar aan uga shubo biidnillaahi alkariim qiyaasta aniga isticmaalayo waa kiilo bur ah dib dambe bur dambe loogu madarayo insha Allah hadii aad maasha Allah arabtid ina kiilo bur qasatid sida u qiyaas rootigu ku hagaagi doona biidnillaahi alkariim hadii uu familkaada family yar yahayna halfkiisa ka dhigo hal koob oo biyo ayaa kugu filan hadii aad nus kiilo qasanaysid hadii aad rubac qasanaysid qiyaasta lee ka qaado koobka oo laba loo qaybiyay ayaa kugu filan biidnillaahi alkariim marka waxa idin leeyahay asxaabay hadii aad markuu hore channelkeena soo booqataan subscribe-ka channelka karin ee qurxin waxa ka helaysaa cunooyin unique ah oo maasha Allah aad iyo aad wanaagsan isqurxinta iscaataynta hadda maasha Allah meel wanaagsan ayay noo maraysaa miisaan fara badan oo inooga dhacay insha Allah waana soo geliyaa biidnillaahi alkariim ka faa'iideysa hadii aad u baahantahay inaad jirkaada dhisatid ka faa'iideysa hadii aad inaad cunooyin qurux badan oo caruurta iyo xaajiga uga faa'iideystid aratid ka faa'iideysa hadii aratid ina korkaada iyo facekaada ku noqdo gabar yar oo dhalinyaro ah dhammaan waa la soo geliyaa insha Allah hadda burkii markii aan soo wada qasay oo aan soo qaskiilada burka aan ku soo dhaweeyay ku soo dhameeyay sidaas iyo soo baxay u jeedin marka in yaroo saliid ayaan kor uga shubaya taasoo aan rabo inuusan cajiinka markii aan dabool oo iga qabsanin kadibna waan daboolayaa ilaa 5 daqiiqo 5 daqiiqo markii aan daboolo insha Allah oo ii soo fuuro ayaan isku soo noqonaynaa haddana waxaan aadaynaa insha Allah inaan suubsano wixii aan rootiga gudaha ka gashan lahayn
dabkii ayaa hadda imaanay digsi ayaan soo saartay kadibna saliid yar ayaan ku shubay saliid yar markii aan ku shubo waxaan rabaa basal inaan ku shubo 2 xabo qiyaastii oo basal oo iska normal ay ii ahayd basashii ayaan wax yar dabka aan gelin aan ku qasayaa kadibna hilib ayaan ku soo ridanayaa qiyaastii hilibka isticmaalaya aniga waa nus kiilo wax yar dhiman waa rubac iyo tumin qiyaastii meelaha soo kaleeto hadba intii kugu filan ayaa suubsan kartaa maasha Allah aniga intaas ayaa maanta isticmaalaya hilibka marka wax yar aan qoyaanka aan ka soo bixiyay kadibna waxaan ku darayaa carrot iyo beans oo digir ah digirta markii aan ku daro carrotkii iyo digirtii ayaan si fiican isugu qaso ayaan waxaan kaleeto ku soo darsanayaa spinach waaye spinach aan soo jarjartay spinachkii carrotkii digirtii hilibkii ayaan si fiican isu dhaxgelinaya markii aan si fiican isu dhaxgeliyo oo wax yar ay u hurto ayaan waxaan rabaa hadana wixii xawaaji markaas aan haysto inaan ku darsado insha Allah iyo tomato yar halkaas waxaan ku haystaa waa 2 macalgo oo yaan shiishiid ah waxa kale toon haystaa xawaaji kaari filfil xawaajiga caadiga ah cusbo intaas ayaan rabaa inaan ku darsado markii aan ku darsaday sidaan ay igu soo baxday guduud qurux yaayada waxay ku siinaysaa dhadhan gooni ah kadib waxaan ku darsanaa barbarooniyaal kala nooca basal iyo kamsar caleen sidaas ayuu hadda alaabteeni maasha Allah diyaar inoogu tahay haddana dabka waa ka daminayna biidnillaahi alkariim dib ayaan waxa ugu noqonaynaa rootigeeni aan soo qasanay dib markii aan ugu soo noqon rootigeeni maasha Allah waa kana waa inoo soo qamiiray cajiinka sidaas ayuu inoogu soo baxay haddana jiileec maasha Allah wadadan hadda aniga aan u qasay insha Allah si fiican ugu fiirso u qas insha Allah ma had ayaa ka soo celi doontaa biidnillaahi alkariim maasha Allah rootiga ayaa marka weelka ayaan soo gidiyay waxaan rabaa inaan xoogaa wax yar cajimo 2 daqiiq 3 daqiiq waa soo cajimo waa soo kuuskuusay kadib markii aan soo kuuskuuso in yar intii aan karaba u soo kuuskuus kadib cajiinkii ayaan fidinaya insha Allah hadii aragto kala ku fidin kartaa hadii aragto gacanta ayaa ku fidin kartaa halkan xabad ayaan xabadkan ugu horeeyay ayaan kasho ku fidiyay kadib waxaan ku soo darayaa 1 macalgo oo qudaarihii iyo hilibkii maasha Allah isugu kayna karsanaa kadib kor ayaan waxa uga daraa cheese-kan aan isticmaalayo waa cheese mozzarella cheese-ka markii aan kor uga daro kadibna waan ku laabayaa markaas ugu laabo rooti waxaan rabaa inaan ka suubsado rooti flour oo sida flour-kii oo kale maasha Allah u tixan waa ila arki doontaan biidnillaahi alkariim marka waxaan idin leeyahay hadii taa markii ugu horeyso oo soo booqata channelkeena subscribe si aad uga faa'iideysata biidnillaahi alkariim cunooyinka qurquruxda badan maasha Allah ma ahan inaan cunno isbareeno laakiin kaliya waxay tahay inaan kala faa'iideysano sida oo loo kala gidinayo marba design adigoo wixii ahaysid rootiga aadan hal naqshad maalin walba u suubsanin hal naqshad aadan bariiska u suubsanin hal naqshad aadan hilibka u suubsanin oo yacni kala bedelatid sida cunnada ay kuugu noqoto wax loo xiiso biidnillaahi alkariim waxa kale tad ka faa'iideysaa insha Allah hadii aad rabtid ميزان دمس اسقرحين بإذن الله الكريم اسقرحين تاسو wax maasha Allah aad iyo aad wanaagsan dad badan ay ka faa'iideen adeegna ka faa'iidi doontid saxan ayaan soo qaatay u jeedin bakeeri ayaan dhaxda ka soo saaray galaas yar kadibna rootiga ayaan sidaas ugu safaaya sidii ubaxii oo kaleento flower-kii oo kaleento ayaan waxa rabaa in ugu safo waa isku dhaweynaa marka hadda space sidaan u helo wax yar inuu kala fog yahay arkay kadib halkan xabo ayaan sidaas u soo geliyay maasha Allah sidaas iyo noogu soo baxay quruxda badan kadibna hadda koobka ayaan ka bixinayaa kadibna waxaan suubinaa insha Allah ukun ayaan kor ka marnaa qaybtii jaalaha aan reebtay caano yar oo isku soo qastay kor ayaan ka marnaa kulli waan soo wada marnaa si fiican markaa u soo mariyay ovenku aadaya ovenka hadda uu isii shiidan yahay 15 daqiiqo 20 daqiiqo waa in ovenka ku sii shidnaada oo ku sii kululaada ma aha markii aad gelisid inaad shidid hore ha ku kululaado ugu yaraan 10 daqiiqo sii shidnaado kadibna waxa ovenka uu ku haynaa insha Allah 10 daqiiqo 15 daqiiqo 20 daqiiqo 180 ayuu ii joogaa markuu ka soo baxo ayaan isku soo noqoneynaa maasha Allah waakana rootigeeni sidan ayuu noogu soo baxay qurux jileec maasha Allah kaagana caafimaad badan rootiga banaanka aad kaga soo gadaysid kaagana maasha Allah nadaafad badan oo yacni adiga gacantaada ku sameeysto wax wasaq male yacni ma ka shikinaysid dadka shakiga qabo kaleento muxuu ahayn dad waxana ku sameeysta ay qudaarkii arabtid oo kaleento ayaa dhaxda ka gashan kartaa hadii aragtid maraq ayaa u suubsan kartaa inaa waxa qudaarta dhexda laga gelinaa aad ka dhaaftid hadan rootigeena waan kala jareynaa insha Allah aan aragna sida inoogu soo baxa maasha Allah sidaas iyo inoogu soo baxay waa rootiyaasha insha Allah ilmaha ay jecel yihiin ee kuugu cayilaan maasha Allah xaajigana hadii aad u dhigtid maasha Allah duco oo kaaga soo hibeynaa biidnillaahi alkariim
marka waxaan idin leeyahay dhammaan inta ugu cusub maasha Allah bariyaha aad iyo idinkaga mahad celinaya sida aad igu xirantihiin channelkayga sida aad commentiyada quruxda badan oo dhiirigelinta igu soo qortaan insha Allah waana mahadsantii inta ugu cusub intii hore ila joogi jirto maalinka soo bilaabay ilaa hadirtan maasha Allah ila socoto waa mahadsantihiin biidnillahi alkariim waxaan idin leeyahay hada videoga ka heshay like saar hadii aan maxuu inta ku cajibiyo u sii share garay insha Allah asxaabtaada la wadaag waxaan idinka tagay salaamka islaamta assalaamu calaykum waraxmatullaahi